السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارت سود وهذا waxay noo socday kooriskeenna magacaabaasiiseeneeda insha Allah ardayda waxaan u wargelinayaa inaanay fogeysan goorma barad kala kala bilaaway ani waxaan aamsanahay kooras walba wuxuu ka kooban yahay waxa loo yaqaano theory iyo waxa loo yaqaano practical marka ardayda qaar baa isla malaasan baa lagu wadayaa oo waxa qoraalkan waa la akhrimay saddexda chapter hore inaga ekaanaysa insha Allah wixii inta ka dambeeya insha Allah inaga iyo practical ba insha Allah loo kala bixi doono marka waxaan rabaa inaan asaasiyaadkan iska sii dhisno way ma dhow asaasiyaadkan waxyaalo badan oo la qabsanayay kamid ah qodobka sax meel misla dhigni haddaba qawaacidda san meesha isku meel dhigno waxaan dhahnaa chapterkeena labaad laba qodob baan ka warram doonaa mar waxaan ka warram doonaa wax loo yaqaan landscape waan ka soo waranay oo local area network la yiraahdo laba noocna loo qaybiyo soo halans iyo interface lan waxay ku kala duwan yihiin waan ku soo xeel dheeraanay videoga waxaan ku bilaawi doonaa chapterka qaybtiisii dambe oo iyaguna xoogaan wadi doono oo loo yaqaano ethernet ayaan ka warram doonaa ethernet ma waa ethernet haddaba qaybteena dambe saan u bilowno ayaa waxaan leenahay ethernet horta maxaa shay walba waxa la yiraahdaa faham guud horta inaad ka haystaa laazim meel socda horta internet waa maxay internet waxa weeyaan waa af Soomaali horta wadaadkii gulahay waa tiknoolajiyada inoo saamaxaysa in kombiyuutarradeenu ay isku xidhmaan ama si local area ha isku xidhmaan ama si waan isku xidhmaan tiknoolajiyada ama fikradda ka dambaysa in kombiyuutar wan marka la soo qaado kombiyuutar tuuna lagu xidho inuu xoog isu idaarsadaan kana xogtii uu helo kana xogtii uu soo diro fikradda ka dambaysa iyo luqadda ka dambaysa iyo xeerarka ka dambaysa iyo hanaanka ka dambeeya ayaa loo yaqaanaa internet isla fan illa waxaan aragnay inagu iyo tusaale waxaan arkaynaa halka waxa noo yaala computer wan bay noo yaala halkan waxa noo yaala mobile ama tablet si toos ah waxa uu xidhisay routerka waxa uu ku tuurayaa halka internetkii deetana ninkan baa computerkiisa furay deetana wuxuu qoray www.google.com google deetana routerkii waa google.com internet ku diray deetana google.com soo diray deetana kan baa kan keenay tabletkanna wuxuu la soo degay lagu soo dejiyay mobilkii game-ka loo yaqaan PUBG internet ku kala soo dega waa uu hela waa uu isticmaalaya asxaabtiisa si automatically halka uu kala hadlaya smart open kan baa waxa iska sida in la yiraahdo xafsa iska sidata si waxay rabteen WhatsApp-kii booqato way soo socotay internet routerka qabatay routerka internetkii geeyay way ka soo noqotay hada wiilka yar mobilka sita Cabdiqaadir loo yaqaano ayaa isaguna wuxuu qarabaa inuu serverka booqdo serverkan u booqdo waa inuu routerkii qabtaa routerkii baa serverka u tilmaamaya serverkii wuxuu doona ka soo qaadanaya soo aragtida ama hadalka badina ku celceliyo maxaa fahanka ka dambeeya ila waxaan isfahmeen ba ka horeysay markaan computer wani uu internetka xogta ka soo qaadanayo ee la oranayo computer waxa soo raba serverku fahmi titano serverku soo celin fikradda ka dambaysa ayaa loo yaqaanaa internet ila shay walba waxba ka dambeeya ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu wama khalaqana as-samawati wal arda wama baynahuma la'ibin macnaheedu tahay cir iyo dhul uma abuurinay ciyaaro ma abuurin macnaheedu tahay waxaan anagoo taa garabka saaray macnaheedu waxa ka wada waxaan inay wada xiriiraan ilaa iska wada xiriirmaan wayna luqad jamcinaysa isku fahmay weynay jiraan fikradda ka dambaysa wada xiriiraan baa loo yaqaanaa internet inta meel masala dhigni ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku kula fi suurati al-mu'minuun afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un wardad yahay maxaad u malaynaysaa inaan ciyaarniyo abuurno oo inaga noo soo noqonay marka ayadaasna halka inoogu joogaan laakiin waxaan ka wadaa weenad la fahanteen internet waa luqadda waxaan isku fahmayaan inta mis afsaan isku dhigan hadaba ingiriiska aan akhriino internet waxa leenahay waa traditional technology waa technology waaye badan soo jitay taasoo isku xidho kombiyuutarradii si isku xidhmaysa ama si wire local area network ku wada xidhmaan oo tusaale oo kombiyuutarkaagu si toos ah shabakadaada ama local area network kugu jiro oo sax xariga lawaaniga local area network laba kala qaybinayso ha iyo tii kale iyo enterprise oo macnaheedu tahay kombiyuutarkaaga ama si toos ah xariga intuu ka soo baxo kombiyuutarkaaga ku xidhmo ama sawir haan waxa la ila fahmay hadalkan jaro labada midkoodba hadii maanta halka uu ku yaala waxa yaala halka switch marto waxa yaala tusaale halka waxa yaala computer wan baa yaala
halka waxa yaala computer 2 halkaana waxa yaala computer 1 haddii computer 1 uu rabo inuu computer 2 u diro waxa loo baahnaanayo horta waa ethernet haddaba computer 1 iyo computer 2 doona xadhiga ka dhaxeeyo ama yaalo xadhigba ka dhaxan si waarleysnaan oo wada hadlaan fikradda ka dambaysa loo yaqaan ethernet ama xadhig laan taasina ma khusayso labadaba fikradda ka dambaysa loo yaqaan ethernet haddaba ethernetka maxaa laga faa'iidaa maxaa faa'iido ku jirta wuxuu ku enables device qalabyada wuxuu saamaxayaa inay wada xidhiidhaan mid kale oo la xidhiidho iyadoo la adeegsanayo protocoladu waa maxay protocolku waa aniga hore u sheegnay oo dhahnay waa xeerar isku tagay taasoo ama luqadaas oo isku fahmayaan kombiyuutarada oo tusaale markan uu computer 1 uu routerka u marayo uu routerkii ku leeyahay waxaan rabaa internet wala hadlaya waxaan uu kula hadlaya loo yaqaan protocol maanta tusaale xaflad baad maanta waxa tagtay maanta dhakhtarkii markaad tagtid waxa lagu dhigi war waxa dhakhtarkii markaad u wareemso waxa leedahay halkaas ay xanuunsan waxa xana waan rabaa sooma maadaama la hadashay hadalkaas wax isku fahamsan sidoo kale computerka markuu rabo in internetka uu booqdo router buu si mariyay routerkaagan cidda siduu fahansiinaya ama wuxuu adeegsanaya ama luqadda adeegsanaya loo yaqaan protocol sila fahmi aan si wadno u joojinayno ethernetka oo kale haddii ethernet lagu diba oo saa lagu diba ethernetku ma hal protocol ba may waxa leedahay waa ethernetku waa protocol isku tagay ama waa luqado isku tagay luqadaha isku tagay middo wax bay cabiraysaa tusaale ethernetka waan gaari doonaa standard relay tusaale luqad sheegaysa xadhiga noocii la adeegsaday qodobka u fiirso ethernetka waxaan ku yiri waxa uu ku dhisan yahay luqado badan many of language ama many of protocols markaan ku leeyahay language protocol baan ka wada tusaale luqad sheegaysa maadaama sawirkeena ku soo noqono luqad sheegaysa computer 1 iyo computer 2 nidaam noocyo kooda xidhiidhay waa luqad sheegaysa iyo luqad kale oo sheegaysa xawaaraha wuxuu ku soo diray taasina waa luqad dibaad luqad saddexaad oo sheegaysa halka uu rabo luqad afraad oo sheegaysa muxuu si adeegsanayaa si routerka uga tago internetka oo qabto marka internetku hal rule maahe waa luqado iyo xeerar badan oo isku tagay ayaa internet la isku yiraahdo midba shaqo gooni ay qabanaysa isla fahmi intaasaan ku soo koobayna ma raba inaan videoga soo socdaan insha Allah ku arki doonaa maadaama aan dhahnay internetku waa luqado isku tagay iyo standardo bal internetku maadaama uu technology yahay heerarku soo kala maray iyo maanta halka uu maray ilaa waxaan aamsanahay ilaa luqadu Ilaahay subhanahu wa ta'ala buu ina siiyay luqadaheena caadiga ah hal meel ma taagnade maalin walba erey baa lagu soo daraa maalin walba way socotaa waxba laga tagaa sooma sidan kale maadaama internetku kuli waa luqad taasoo kombiyuutarada isku sameeyayna wada hadlaan iyaduna hal meel kuma eekaanay waa ay soo socotay waa taxanay oo maalinba meel bay taagnayd marba xawaare gooniye matalaysay mar walba qalab gooniye isku xidhaysay meelaha baan video soo santa ka waran doonaaye internetka meel laga sii dhigo internet hadii lagu diyo waa inaad garan karaysaa af Soomaaliyaana ku sheegi karaysaa English hadda doonto ayaad ku sheegi English laazim ah English waa dhalan laakiin aad Soomaali ku sheegi karaysid oo aad ka dhaadhicin karaysid oo hadii ayay ku tiraado iyo war waad uga warrami karaysaa waxa la internetka ayaa laga rabaa intaas video ku soo koobnaa. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.